fadhigan ay yeesheen mudanayaasha aqalka golaha guurtida Somaliland ayaa waxay gabi ahaanba golaha guurtida Somaliland joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen golaha wakiilada Somaliland geesta kale golaha guurtida Somaliland waxay si adag uga hor yimaadeen xeerka kufsiga oo dhawaan madaxweynaha Somaliland dhaqan galiyay waa kuwan xildhibaanada golaha guurtida Somaliland oo arrimahaasi ka hadlaya iyagu waxay haystaan 3 sano ay haystaan 2 sano ay haystaan sanad bay haystaan 2 week bay haystaan waxaan leeyahay taariikhdu way isqoraysaa xeerarkeena aan ka jiro degdega aynu ku ansixinayno maalinta markuu soo galay markuu ansixinay caruurteena akhrisanaysa marka waxaan leeyahay aan ka fiirsano waxaan dalka u ansixinayno mudanayaal gudoomiye mudanayaal anigu waxaan soo jeedin lahaa dhammaan xeerarka inaga baxay koobigoodii in loo gudbiyo maxkamadda sare wixii golaha wakiiladu ansixiyeen si waafaqsan dastuurka wixii ay la publish gareeyay madaxweynaha la geeyay si loo joojiyo loo hubiyo oo hadii dastuurka jabiyaan golaha dastuurka la mariyo saas soo jeediyaan bismillaah aniga magacaygu Liban Muxtaar Xaji Maxamed Cabdillah Muxtaar Diiqraad kullay waxaan ku darayaa doodii maanta ee golaha ka dhex socotay fadhigii maanta oo ahaa xeerkii kursiga golaha aad ay ugu hadlaayeen marka la eegto wax ka bedelka marka uu madaxweynuhu soo celiyo wakiilada maanta badan guurtii ku soo noqdaan guurtii marka iyaguna ay la qaataan ayaa loo gudbiyay madaxweynaha marka labadii madaxweyne guurtii ku soo noqon ayaa toos madaxweynaha loo gudbiyay taasuna waa arrin qodobka labaad meesha jira waxa weeyaan golaha guurtii wuxuu wadanka uga mas'uul yahay 3 qodob ay ka mid yihiin arrimaha nabadgelyada diinta iyo maxay arrimaha dhaqanka marka waxa ay xaq u lahaayeen mar walba inay ogaadaan ugu dambeyntii waxaana lagu sameeyay faafintii rasmiga waxaana saxay madaxweynaha marka qodobka waxaan leenahay lagu soo celiyay golaha guurtida si loo waafajiyo arrimaha diinta iyo dhaqanka iyo arrimaha nabadgelyada intaba way golaha guurtida iyaga xaq u lahaa dastuurkiyo wadankana arrintan uga mas'uula waxaan soo jeedinayaa gudoomiye iyo mudanayaal xeerar badan bay wax ka bedelay xeerarkaas golaha wakiilada ku celinay waxa ka mid ah xeerkii kufsiga oo shirkutoonkuna imika uu marar ka qoray xeerkii idaacadda laga sii deynay waa la faafiyay xeer aan dastuurka waafaqsanayna uu ahaa diinta islaamkana aan waafaqsanayn waxa ku ka bedelkeedii iyo kaabisteedii waa la diiday anigu waxaan soo jeedinayaa mudane gudoomiye iyo mudanayaal ilaa aynu golaha wakiilada xeer hoosaad yeelanno inaynaan xeer dambe ku celin xeerkii labada golo ku hoosheeyay lahaayeen inaynu soo jeedinno xeerarkan aynu golaha wakiilada ku celinayna aan joojinno haddii maxkamadda tafsiil loo dirayna dee loo diro laakiin xeerka ay ku taallo 15 waa qaangaadh ee aynu celinay ee ay ka saareen ee 18 ku qoreen diinta islaamkana uu ka hor imanayaa dhaqankana uu ka hor imanayaa dastuurkana uu ka hor imanayaa haddana waa la faafinay xamse cilmi telefishinka caalamiga ah ee Universal Hargeysa